wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Marbara marti sharaf kala tiro badan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay 51 arday oo ka baxay dugsiga boardingka ee Dabalweyne kaasoo ku yaala degmada Madheera ee ka tirsan gobolka Saaxil ugu horreyn waxa halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Madheera Cumar Cali Xuseen iyo gudoomiyaha waxbarashada ee degmadaasi Daawud Maxamed Muuse waxayna ka warbixiyeen marxaladii kala duwan ee dugsiga soo maray waxaa ka horeysay way kooban tahay sanadkii hore waxaan xuseeyay 26 arday oo degmada Madheera abdaal ka qalin jabiyay waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa Cabdishakuur oo ah waxa ugu qiimaha badan leeyahay gobolka Saaxil maanta ay ku faanayso oo ah shakhsi wax walba ka qayb qaatay waan u mahadcelinayaa waalidiinta kale ee halkan ay ku joogaan ardaydoodu runtii iyaguna sanadaha soo socda ka soo qalin jabin doona waxaan runtii ku dardaarayaa kuna adkaynayaa inay dadaalkii ardaydaas ay ku qalin jabiyeen ardaydooda la garab istaagaan runtii guddigan ay u xidhaan sidii ardaydaas iskuullada ay u dhamaysan lahaayeen run ahaantii dhammaantiiba waxaan idin rajaynayaa guul labiyo kontonka arday waxaa ka mid ahaa arday marxuum ah oo isna Allah u naxariistay halka maanta ay uga ducaynayno oo isagoo imtixaanku aanu soo bixin waqtigiisii aanu gaadhin geeriyooday oo balligaa dacar buro uu liqay amiin cali xasan Allah yarxamu raxiimiin ilaahay naxariis jannada ka waraabiya waan leenahay dee anaga wuxuu noogu tirsan yahay uun 52ga oo iminka halkaa markay sawirradooda ku yaallaan uu ku jiraa dee imtixaankana AB unbaa loo qoray oo sida sharciga wasaaradda yahay absan unbaa la qoray laakiin annaga ardayda waxaa inay wadaa marka 52 waa ku tirinaynaa labiyo kontonka arday waa ku tirinaynaa labiyo kontonka arday waxay ku baaseen oo ku gudbeen darajooyinka kala duwan ee aadka u sarreeya jamhuuriyadda imtixaanaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo baxay kuwaas oo kala ahaa A B iyo tiro kale oo iyaguna koobneyd oo garabka C ku baxay duqa degmada Marbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abukor oo iyaguna hadalka uu kala dambeeyay ayaa waxay hambalyeeyeen ardaydan maanta ka baxday dugsiga boardingka ee Dabalweyne gudoomiyaha degmada Madheera ayaa soo gudbin doona isagoo la kaashanaya maamulka iskuulka gudoomiyaha waxbarashada ee Sheekh ama maayarka Sheekhna isagoo la kaashanaya عدي أول كرودي صدق جامعة بركوية لا كي ودونه أيها الجنية دولة على عتق الحماس أنا أقول هلا يا أفقول هذا كده ما يبرر أنا أقول هلا يا قدوميها قد الدنيا تقول حاج موسى حرتي أبو كري لا يعرفون هالسيو وحناكن قبل نقالنا isla sanadkan iskuulkeena hal arday ka ugu aqoonta badan ee ugu GB-ga sareeya iyo iskuulka kale laba arday waxaad arkaysaa dad aanay waxbarashadu uba bilownayn inaynu fariin gaarsiino weeye inaynu wacyigelin u sameeyno weeye waxa weeye caruurteena meelaha ama xoolaha la joogta ama tuulooyinka iska dhex joogta hadhow toolana balwadaha iyo shaadka ee meelaha ku baranaysa si loo soo dhiirigelin lahaa ee loo soo gacan qaban lahaa ee iskuulada loo keeni lahaa ayaan iyadana fariin ugu dirayaa intayna halkan joogtay iyo intayna naga maqanba Delofara Foundation head la gacanta ku hayso iskuulada kabka dawladdu siiso ka mid yahay sababta kabka loo siiyana waxa weeyaan ardayda reer Soomaaliya oo dhan baa gasha labadan iskuuladan iyo duco ay kan Dabalweyne ku yaaliya ka Sheekh ku yaaliya door isagana ardayda reer Soomaaliya oo dhan baa wax ku barata maanta xafladan markaa waxa soo wasiir wax u yimaadeen waxa weeyaan kaalinta sare ardaydu galeen runtii dadaal muujinaysa iyo loo mahadnaqo markaa dooniyo duco iyo cid kasto iskuulkan gacan ku darsatay gabagabadii munaasabadan ayaa waxay ugu hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdilaahi Abukor Ismaan iyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Xirti Jaamac wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiri waxaan doonayaa halkan inaan baaq fariina uga diro qolqoljoog iyo qurbajoog labadaba maanta waxay noo muuqda raadkiisii ummaduna wixii wanaagsan inay taageerto ay soo dhawaysan loo baahan yahay rag baadiga waxay ku yidhaahdeen meesha waxaa lagu cunaa wixii dameerada ku cuni jireen waa been
cad oo maanta ognahay oo qaadadii maanta jooga cid ka qurux badan maanta ma jirto waxaan jecelahay waxaynu macaaridayno iyo waxaynu diidayno inay noqdaan wax ummadda dan u ah laakiin qof wax tan ku geystay oo ummadda horumar ku sameeyay oo aan leeyahay dee dadkuba way shiraan oo intaa beelaha Somaliland jooga oo dhami way shiraan oo shirar bay qabsadaan oo shir hebel baa la yiraahdaa laakiin waxaan oran karaa waa shirka mila dalka Somaliland u leh ee qaranka oo dhan anfacay ee ay hogaaminayeen gudidii dan iyo duco oo gudoomiye ka yahay halyeeyga aan oran karo waa lixlihii labaad ee Somaliland mudane Xaaji Muuse Xirsi laakiin wasaaradda waxbarashadu waxay sameysay siyaasad ah in mudnaanta jaamacadda la siiyo ardayda iskuulada secondary-ga kaga soo baxda meelaha aan jaamacad lahayn oo halkan ka midtay cidii kale waxay ka bixinaysaa idinka bixiso koob iyo kontonkii dhaba laakiin wasaaradda waxbarashada damaanad qaadaysa jaamacad inay gashaan waxaanu haynaa 1230 arday oo secondary kaga soo baxay meel aan jaamacad ku hoolin 49 iskuul weeye kan ka mid buuyi 1230 kaas ayaa ka midtiin waxaan idin sheegayaa waxbarashada gudaha iyo dibadduna waa isku mid dibadda ha u hanqal taagina dibadda rag oo dhamme oo idinka wada waaweyn oo master iyo PhD sita intuu noo walba tagu isiri mala jannaad soo tagaysaa qofka day binaadamka meesha ku noolaadaba oo meesha kale laakiin ayuu noo walba iska soo noqdo yiri waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul Qoobjoog TV